haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan dhalinyarada Puntland maxay sadalada dhalinyarada Puntland ee maanta la doortay ay ka qaban karaan shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Puntland waxaan su'aalaha iyo kuwa kala weydiiyay aqoonyahan Cabdirasaaq Wadani oo kamid ah dhalinyarada Puntland kaas oo wax badan kala socda xaalka dhalinyarada Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim saawigtahay maanta oo ahayd labadii bishii 7 2022 waxa dhacday waxa la doortay hogaanka dhalinyarada Puntland kadib shir ay isugu yimaadeen golaha dhexe dhalinyarada Puntland markooda waxaan baleenayaa waxaan leeyahay xilka eebaynu ku asturo mas'uuliyadda dhalinyarada u qaadeena maaragtay ilaahayna ku asturo ilaahayna hayna garowsiyo mas'uuliyadda qaateen hambaliyo kadib waxaan rabaa inaan maanta kale waxay ahayd in la isweydiiyo maxay tahay caqabadaha horyaal dhalinyarada Puntland maxaa loo baahan yahay imise dhalinyarada shaqo la'aan imise dhalinyarada la rabo in la jeeyo maxaa noo qabsoomay halkee joognaa xagoo soconaa su'aalo ahayd in la isweydiiyo maanta saa ogtahay dhalinyarada Puntland waxay ku sugan yihiin caqabado tiro badan oo ay ka mid tahay shaqo la'aan jahayn la'aan matalaada siyaasadda ku yar doorka qaybgalka siyaasadda iyo maaragtay arrimaha bulshada iyo initiative-ka ama maaragtay hal abuurnimada dhiirigelinta iyo maaragtay sidoo kale maaragtay falalka argixisada iyo maaragtay in qaybtooda ay dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan iyo sidoo kale wacyigelin la'aan dhalinyarada haysata sidoo kale daraagiska maandooriyaha dhibaato baasan ku haya dhalinyarada Puntland maanta kale waxa cilmi baariso in la soo bandhigo la yiraahdo maxaa maanta dhalinyarada horyaala maxaa u baahan in loo qabto halkee baynu soconaa sidee la rabaa in loo jeeyo dhalinyarada Puntland aad iyo aad waa maaragtay u ahayd wax maaragtay muhiim ah aniguna markasta waxaan ka mid ahay dhalinyarada Puntland kuwada markasta fiiriya ama maaragtay waxyaalaha caqabadaha ee dhalinyarada la gudboon haddii noqoto dhaqaale ahaan siyaasad ahaan dhaqan ahaan iyo intaba matalaad ahaanba waa soo noqon doonaa caqabadaha dhalinyarada ka haysta shaqo la'aanta iyo waxyaabaha kale doorashadii maanta dhacday adiga aragtidaada dhawaanahan baraha bulshada waxa haysta khilaaf weyn oo dhalinyarada Puntland soo dhaxgalay maamulka cusub oo dhalinyarada inkastoo maamulkii hore marka loogu celiyay maxaa kala gudbay inuu arrimaha ka yeelo khilaafka dhalinyarada aniga waxaan qabaa cid kastoo xaq u leedahay inay cabato inay wax isweydiiso laakiin waxaan rabaa fariin inaan u sheego guddoonka cusub inay fahmaan horta marka hore waxa loo doortay waa maxay waxa loo doortay maanta waxa loo doortay maxay yihiin waa inay fahmaaneen markay fahmaan ka bacdi weynay fahmaan mas'uuliyadda ay qaadeen inta rigantay dhalinyarada Puntland oo dad lagu qiyaasaya 5 milyan 4 milyan oo Puntland boqolkiiba 70 dad kamid ah ay mas'uuliyadooda qaadeen marka waa inay fahmaan waa inaysan noqon qof u shaqeynaya qolo institution gaar ah u shaqeynaysa qolo cid kale gaar ku noqonaysa qolo cid gaar ah leedahay horta waa inay noqdaan dad u siman dhalinyarada Puntland marka saddexaad waa inay darsaanin oo si dhiib leh u darsaanin dhalinyarada Puntland oo maaragtay waxa ay baahiyooda gaarka ah waa qabaa caqabado inay jirto maanta badan wax badan ay ka gaabiyeen dhalinyarada Puntland hogaankii hore loogu celiyay wax badan oo ka qaato laakiin waxa rajaynayaa in dabka sii doonaan anaga dhalinyarada Puntland ba cid ba uma baahnaayeen oo baahnaa institution gaar uma baahnaa sanduuq aan sameysano anagu waxaan ku waxsanaa u baahanahay oo si dhab aan u darsno marka maxay yihiin caqabadaha ururkan haysta ama waxyaabaha u horeeya ee laga rabo inay qabtaan in maaragtay caqabada dhalinyarada haysata oo ay kamid tahay maaragtay shaqo la'aanta matalaad siyaasadda ka haysata jiha xumo ka jirta in dhalinyarada la jeeyo taariibto caqabad ah jirta waxyaalahaas oo dhan maaragtay marka jahayn la'aan haysata iyo sidoo kale maandooriyaha dhibaato ah marka iyo maaragtay dhanka hal abuurka oo dhalinyarada caqabad ka haysato loo baahan yahay maaragtay hal abuurka in laga taabageliyo marka waxyaalahaas ku soo koobi lahaa caqabadaha haysata dhalinyarada marka doorka dawladdu muxuu yahay si dhalinyarada loo jeeyo deegaanada Puntland doorka dawladdu waxa weeye koow dhalinyarada in la jeeyo lagu jeeyo jahada saxda ah ee loo socdo mid siyaasadeed mid dhaqan mid hal abuurnimo mid dhiirigelineed mid ka qaybgal arrimaha bulsho mid shaqaalaysiin mid ma garanaysa wacyigelineed dawladdu haddii dhalinyarada wuxuu sheegin wacyigelin tiro koobin la socon waxyaalo kala duwan siin seminaaro kala duwan wacyigelin kala duwan loo qabto dawladda waxaa laga rabaa roolkeeda saxda ah inay qaadato oo ku cad qawaaniinta asaasiga ee dawladdeena iyo jiritaankeena dawladnimo oo ah inay tahay Puntland inay door weyn ka qaadayso jaahinta dhalinyarada iyo siyaasadeeda mudnaan gaar ah siinayso dawladda hadii inta qaban weydo waxay ku fashilmaysaa shaqada sax loo soo kortay gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha dawladda Puntland waxa la rabaa inay fahanto doorka dhalinyaradu ay ku leedahay dalkan muhiimadiisa ay gaar ah siiso oo ah in maaragtay la siiyo ahmiyadda koowaad la siiyo
horumarka jiritaanka iyo taabagelinta iyo magaranaysaa dhiirigelinta dhalinyarada Puntland runtii waxyaalaha aan aadka aan markasta uga soo horjeedo waxaa kamid ah shirarka waaweyn oo kale markay dhacayaan waa in sanduuqyo lagu soo bandhigo dhalinyarada dowladdu in sanduuq sameyso oo shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada sanad kasta intaas qof la maalgeliyo xalfadaha waaweyn oo dhalinyarada loogu qabanayo waxa ka muhiimsan sanad kasta hadii la yiraahdo 10-20 dhalinyaro baa shaqaale baan hal abuur u sameynay hadda ka soo qaad 70% dhalinyarada Puntland hal sanduuq hadii la sameeyo qof walba hal dollar ku shubo sanad kasta waxaan wadnaa in 40-20 qof aan u siino shaqo abuur sanadka dambe sidoo kale in kale loo sameeyo macnaha wax la taaban karo oo waaqicaada in la sameeyo la rabaa oo dhalinyarada loo sameeyo taasna waxa lagu gaari karaa horumar laakiin hadii sida ku socoto waxay noqonaysaa jujug meesha joog